Mid ka mid ah macallimiinta dugsiyada hoose ee deegaanka Rogaland ee dalka Norway ayaa loo taxaabay xabsiga waxaana lagu xukumay 4 toddobaad oo xabsi ah ka oo lagu xaqiijinayo dambi lagu soo oogay oo ahaa in uu kufsaday ilmo ka yar 14 sano. Macallinkan ku nool deegaanada Rogaland ayaa xabsiga loo taxaabay waxa uuna mutaystay 2 toddobaad oo xabsi karantiil ah oo uusan jirin cid uu la xiriiri karo si taa lamidana aanan jirin cid la soo xiriiri karta oo uu keligii meel ku jirayo, halka 2 toddobaad kale loo ogolaan doono inuu xiriir la sameeyo ehelkiisa iyo asxaabta uu isagu doonayo in uu la xiriiro. Macallinkan ayaa la sheegayaa in uu dambigan wax ka qirtay waxaana lagu soo waramayaa in lagu helay agab kala duwan kaa oo u fududeynayay xadgudubka uu geysanayo. Ninkan ayaa sidoo kale lagu soo waramayaa in xabsiga loo taxaabay kadib markii ay xeer ilaalintu codsatay in lagu xanibo 4 toddobaad oo xabsi ah oo uusan jirin cid uu la xiriiri karo. Arrintan ayaa ka dambeysay kadib markii uu walaac ka soo wajahay xeer ilaalinta in ninkan uu isku dayo in uu tirtiro daliilaha loo adeegsan karo dambigan lagu soo oogay. Qarinka difaacaya ninkan ayaa isaguna ku waramayo in uu ninkan booliiska si wacan ula shaqeeyay uuna ogolaaday xabsigan 4 toddobaad ah ee lagu xukumay. Waxa uuna qareenka u doodaya macallinkan intaa ku daray in aysan jirin wax ka dhaxeeyo dambigan kufsiga ah ee ilmaha yar ee 14 sano ka yar lagu soo oogay iyo sidoo kale xirfadiisa macallinnimo. Maxkamadda ayaa sheegtay in 4 toddobaad ee xabsiga ah ee ay macallinkan ku xukuntay ay ka dambeysay kadib markii ay ka walaaceen in uu isku dayo in uu tirtiro daliilaha loo adeegsan karo dambigan lagu soo oogay si taa lamidana laga cabsaday in uu faldambiyeed kala galo. Eedaysanahan ayaa lagu soo waramayaa in aanan lagu haynin kiisas hore oo dambi ah oo aysan jirin wax u diiwaan gashan ama dambiyo hore ee uu galay. Ninkan ayaa waxa ay maxkamadayntiisu ka bilaabanaysaa deegaanada Rogaland ee dalka Norway waxa uuna kiiskan noqonayaa mid ka mid ah kiisaska faldambiyeedyada kufsiga ah ee lagula kaco carruurta ka oo ka dhaco goobaha waxbarashada. Warbaahinta oo isku dayday in ay la xiriirto qareenka booliiska Siri Anne Filindal ayaa sheegtay in kiiskan lagu guda jiro oo uu socdo baaritaankiisa sidaa daraaddeedna aysan jirin war ay siin karaan saxaafadda ama qaybaha kala duwan ee warbaahinta ka oo ku saabsan kiiskan. Waxa ayna ka gaabsatay in ay wax faahfaahina ka bixiso kiiskan iyo habka uu u socdo. Halka ay wararka ugu doorkaroon idinkaga imaanayeen waa Somali Voice in Norway ama codka Soomaaliyeed ee Norway waxaana idinla socodsiinaya aniga oo ah Cabdulaahi Shiine.